hade howlgalkii horu socodkii iyo howlgalkii iyo dhammaan howlihii socday ayaa gaabis galay. waxaa hadda dib loo yegleelaa mar labaad fayska labaad horu socodka ciidamada guud ahaan iyo kuwa deegaanka. horta waa dhawahay dowladda runurgood kuma jirto gacanta shabaab kuma jirto, qaybo yaray uga harsan yihiin. marka inteeda badanna waa xor, waqti badanayna xor aheeday, laguna dagaalamayay, lagana caabiyay, marka kuna guuldareysteen. marka ma haystaan degmada runurgood meelo yaryar uga harsan yihiin. marka meelahay uga harsan yihiin hadda waa meelaha loo diyaar garoobayo oo gobolada kale iyo degmooyinka kale oo nalamida ay ku wada harsan yihiin ee kalegeed kuma harsano degmada runurgood. inta hadda ay uga harsan yihiinna diyaar garoob fiicana ku socda oo dowladda iyo deegaanka intaba ay iska kaashanayaan. marka waa fiicanta degmada runurgood arrinteeda. gudoomiye ma ahan markii u horeysay ee aad abaabul noocaan ah samaysaan si aad meelaha ay runurgood al-shabaab ka haystaan aad uga saartaan. kan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? hade howlgalkii horu socodkii iyo howlgalkii iyo dhammaan howlihii socday ayaa gaabis galay. waxaa hadda dib loo yegleelaa mar labaad fayska labaad horu socodka ciidamada guud ahaan iyo kuwa deegaanka dhammaan gobolada. marka waa fayskii lamaad oo dib loogu yegleelay dhammaan in laga xoreeyo meelaha ay ka joogaan hadda dhulkan shabeellada dhexe qaybta yar oo degmada runurgood uga harsan yihiin, iyo qaybaha galgaduud iyo koonfurta gobolka mudug. dhammaan dhulkan isku xireen oo aaga bariya. arrintaasi arrin oo gaabis guud oo dhacay ay kamid aheeday. annaga wax noo gaar ah oo si gaara ma ahan hakad annaga noo gaara iyo ma ahan arrin si gaara annaga noo qusaysa. guud ahaan howlgalkii socday gaabiskii galay waayo dibana loo yegleela dhammaan abaabul fiican iyo horu socod fiicanana hadda ka bilaabanaya mar dhow hadda waa la yidhaahdo qaybahay uga harsan yihiin degmada runurgood. howlgalkan hadda dib aad u abaabuleysaan yaa iska kaashanaya? intii hore isaga kaashanaysa macawsuleydii sideedii u abaabulan tahay, sideediina u diyaarsan tahay. say howlgeli jirto inuu howlgeli doontaa, waxay la falgeli doontaa ciidamada xoogga iyo dhammaan ciidamaha qalabka sida. marka horeyna wada socon doonaan. marka waa intii howlgalka hogaankiisa dowladda qaranka iskale, ciidamada deegaanka iyo kuwa dowlad goboleedkana waxay yihiin iyagay la falgalaan. marka hadda sidaan isula falgeli jirna in isula falgeli doonaa hadda waa la yidhaahdo. dadkaasi waxaan leeyahay guushiina iyo higsigiina iyo hadafkii aad ku howlgasheen intaba waa gebagebo. soo dhawaadaan leeyahay. qaybta dambena laga wada qayb qaato oo howlgalkaas looga xoreynayo dhammaan degmada. intii maqlaysa iyo intii hadda howlgalka ku jirta intaba soo dhawaadaan leeyahay. howlgalka horaa loo socdo, dib ha la isaga xoreeyo. waana mahadsantihiin aan leeyahay. hadda jawhar aad ku sugan tahay, ujeedka jawhar u joogta muxuu yahay gudoomiye? hadda socdaalkaasi hirshabeelle marka ugu horeysa degmooyinka oo dhammaan loo yeeray oo halkan caasimada wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu yeertay. markii seminaarkii iyo uu dhammaaday wasaaradda arrimaha gudaha howlihii ay degmooyinka ugu yeertay, aniga maadaama degmada cadow uu haysto degmooyinka xoraha waa la fasaxay. aniga waxaan u heray wasaaradda iyo madaxweynaha iyo gobernatooraha dowlad goboleedka. arrintaas si aan isaga kaashano, go-aan uga wada qaadano sidii looga xorey lahay degmadaas qaybahay uga harsan yihiin nimanka nabadiidka ah. arrintaasaan ku joogaa, waana soo gabagabeyneyna hadda waa la yidhaahdo arrintaas ku saabsan sidii dib loogu xaqiiji lahay xasilinta degmada. qaybaha hadda laga haayo xasilintii iyo gargaarkii iyo horumarintii qaybahay uga harsan yihiinna dib looga xoreey. guud ahaan waxaan ku xirannahay howlgalkaas guudaan ku xirannahay. marka sida howlgalkaas guud oo ugu dhaqaaqaan annagana oo la dhaqaaqi doonaa hadda waa la yidhaahdo. dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer runurgood iyo guud ahaan kuwa Soomaaliyeed? bulshada Soomaaliyeed guud ahaan cadawga in la iska dulqaado, la iska xoreeyo. dowladda qarankuna waa ugu baaqday, waana ku howlgaleen oo hadda dhammaan waa laga howlgalay gobolada iyo degmooyinka. marka gaar ahaana degmada runurgood waxaan ugu baaqaa in la iska kaashado cadawga, dib la iska xoreeyo, la iska xaqiijiyo, culeyska la iska qaado, xoogga la iska soo gooyo, aada loo diyaar garoobo maadaama howlgalka ugu dambeeyay hadda uu bilaabo. marka waxaan leeyahay horaha loo socdo, diyaar garowgana hala muujiyo degmada hadday tahay iyo hadday tahay guud ahaan deegaanada nagu xeeranba.
caynul caafiya hosbital waxa uu kaa daweynayaa xanuunka baabasiirka ma dareemaysaa dhabar xanuun caajis joogta ah cuncun dhanka hoose ah saxaradoo kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn wixii faahfaahina kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777